daafurka xaflad ballaaran oo loo qabtay xubnihii dhawaan iska casiray xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga mucaaradka wadani oo ka dhacday gudaha degmada Balligubadle kana soo qayb galayna dhammaanba waxyaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horan waxa ka hadlay xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaana soo dhaweeyeen xubnahaasi ku soo biiray xisbiga wadani. mar labaad kalkan waxaan kale ku soo dhaweynayaa dhalinyarada garatay inay ku soo biiraan xisbiga wadani ee iyagu is abaabulay ee gartay inuu yahay xisbi soo iftiimayo xisbiga talada qaban doona uu yahay in gobolkan hawd uu xisbiga wadani qalbigiisa iyo laabtiisu ay u soo jeedaan kana tirsan wadani dhammaan shacabka reer Balligubadle waxaan leeyahay waa halkay dantiinu ku jirto waa garanaysaane yaa laamidii baynu ka oomanahay biyii baynu ka oomanahay baahideennu way badan. sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay Naasir Haruun Haybi agaasimiye guriga madaxtooyada gobolka Hawd waxaanu ka waramay sababaha keenay iscasilaadiisa. aan shaacinaya inaan maanta ku biirno xisbiga wadani. su'aalaha kullu aynu isweydiinayna waxa weeyaan maxaa kalifay inay ka tagaan run baan idin sheegayaa danta deegaankeena iyo danta gobolkeena iyo danta shakhsiyaadkeenaba xukuumaddii aan ka shaqeynayna waan ka arki weynay qoladii kalena xisbigii way ka arki waayeen taasi waxay kaliftay inaanay aanaan u habranin inta yare gunooyinka ee aanu qaadanayno laakiin ay ka weyn tahay danta ummadana aanu raacno sidaasaan insha Allah idinkana idinku hogaaminaynaa. gabagabadii waxaa soo gunaanaday madax ka socota xisbiga wadani oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Xuseen Aadan Cadde waxaanu adaladoodu dhignaayeen sida tan. waxa isbedelka keenaya waxa weeyaan waa in baahida taalla gobolka tii aanu berigii aanu kulmiye ku taageernay ayuunbaa weli taalla wax allaaliyo wuxuu kulmiye ka qabtay may jirin wadadaas iyo biyahaas ayaa daahir real aanu ku ridnay halkii lagama qaadin maanta inagoo intaasoo ceel laga qoday waddanka ayaan gobolkan aan wax ceela loo keenin diiwaangelintii kaararkii baa la qaadanaya wax kale xisbigii kulmiye waxba deebeelo buu ka soo fashilmay imika wuxuu xoogga saarayaa sidii uu kaararka dadka uga urursan lahaa inaan ka soo qayb galno xafladan ay isku shaacinayaan xubnihii ugu muhiimsanaa ee u shaqaynayay xisbiga daalan ee waqtigiisu dhammaaday ee xoolihii ummadda ku maqan yihiin ee danta qofka ka fikiraya inuu dhammaystiro wadada laamiga ah isku xidhaysa Hargeysa iyo Balligubadle nimankii markay taal kala waayeen waxay yiraahdeen kaararkii aynu urursanay lacag ku iibsano siday oranayaan kaararka waa la gubayaa. caalamka markaad cod bixinayso fartaadu waxbay tartaa waxa lagu xisaabtamaa ciddad codka siinaysaa maxay caafimaadka kuu qabanaysaa maxay tacliinta kuu soo kordhinaysaa maxay biyaha kuu kordhinaysaa maxay wadooyinka kuu qabanaysaa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi markuu idin yimaado waxa weydiinaysaan war waxa aad xaq ugu leedin baa weydiinaysaan. xildhibaanku waxay dhigeen maalin dhaw dhagax bay dhigeen garoon bay dhigteen dhagax waanu soo dhaweynaynaa garoonka waxaan ballan idin qaadanaynaa inaan garoonka idin hagaajinno haddaanu nahay wadani. ragga tartamaya waxa ku jira raggii ogaa dhibka ku dhacay Balligubadle ayaa ku jira maalin aan soo booqan waa la idin faaniyaa waxa la idin yiraahdo waa hooyadii halganka la idin intaas aabi ku tiin taa iska ilaaliya mad dambe mar baa la idin dagay mar labaad yaan la idin dagin.